madasha aad waxaan ugu daaranaynaa daaha ilaahay shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob mid waxa waaye sida la socotiin madaxweynaha wuxuu hadal jeedin ka sameeyay baarlamaanka oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo wixii soo qabsoomay arrinta labaadna waxay ahaaday kulamadii dhacay guddoonka baarlamaanka iyo madasha dhex maray iyo xaaladda dalka iyo doorashooyinka marka hore waxaan wada ognahay dalkan doorashooyinkii ugu dambeeyay waxaa la xaqiijiyey oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ku faani karaan in doorashada xilligeeda lagu qabto doorasho degan oo laga wada tashaday oo natiijadeeda la wada ixtiraamo ay noqoto oo guul dadka Soomaaliyeed u soo hooyatay oo ayna muhiim tahay in la xaqiijiyo arrintaas madasha iyadoo taas ka duulaysa waxay aaminsan tahay inay laga maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan ay noqdaan doorashooyin hufan laga wada tashaday raali laga yahay natiijadeedana qof walba oo Soomaaliya uu diyaar u yahay inuu fuliyo sidaas darteed madasha waxay ka digaysaa